khayr soo dhawaada ciyaarihi aan geli doonaa maanta waxaa eegi doonaa suuqa kala iibsiga iyo cidda loo saadaalay Euro 2024 super computer oo saadaal yaab la sameeyay waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay Marcus Rashford oo la sheegayo in Manchester United ay fasaxday barnaamij share gareem meel fogna gaarsiin Goal Sports mar walba kala socotaan xoga ugu dambeeyay ciyaaraha waxaan ku hormareynaa horta suuqa kala iibsiga ayaan ku hormareynaa ninkii Rashford waxaa la leeyahay milkiilaasha Manchester United waa la yaabeen qaabkii sanadkii la soo dhaafay uu ciyaaray isla markaana teamka oo markaasi cagajiidka uu ku ciyaaray iyo farxad la'aanta iyo jahwareerka ka dhex muuqday xidiga sidaas daraadeed waxay sheegeen in ugu dambeyntii laga reebay xulka qaranka England oo u ciyaaray Euro 2024 isagoo waliba 26 sano jir ah sanadka Euro 2024 ga dambe 30 jir ayuu noqon doonaa in laga tagi doono iyo in la soo qaadan doono lama oga marka waxay leeyihiin xidigan aad ay ugu dhibtooday Manchester United xil ciyaareedkan hadda la soo dhaafay kii kasii horeeyay xidiga 30 gool ay dhaliyay oo uu cadreeyay ayuu ahaa laakiin xil ciyaareedkan kale waxa ciyaar oo soo bandhigay mala ilaa 8 gool kaliya ayuu dhaliyay waxaana markii warku sheegay inay iibin doonaan nadiga PSG ayaa waxay sheegtay in haddii xidig uu dananayo inuu yimaado Faransiiska inay markaasi iibsan doonaan dalabna ay ka gudbin doonaan marka waa arki doonaa Manchester United waxay sheegay haddii qiimaha saxda ku helaan inay xidigan iska iibin doonaan waa arki doonaa bal dhanka kale haddaan fiirino suuqa galibsiga Manchester United waxaa leeyahay xidiga Gerard Bradway haddii ku quusato waxay wareegi doontaa dhanka iyo xidiga lagu magacaabo Mats Delight oo Bayern Munich u ciyaaro lagana yaabo xidigaas inuu ka tagi doono Bayern Munich xil ciyaareedkan wararkuna waxay sheegayaan in xidigan suuqa yaalo lagana yaabo in Manchester United bedelkiisa uu qaadato ayadana arki doonaa waxaa kala jirta in Divock York xidig hore Manchester United weerar kaga ciyaar jiray oo wacdana ka dhigi jiray triple champion la qaaday ama saddexda koob ee hal xil ciyaareed ee la qaaday 1999kii waa Divock York wuxuu leeyahay waa in Manchester United wax walba u sameeysaa inay Liverpool ka soo iibsadaan xidiga Alexander Arnold taasoo markaas ay saxalanay in Manchester United ay markaas ay xidigaasi Liverpool waa cadawga the biggest enemy oo Liverpool iyo Manchester United ayaa isku ah waxaana leeyahay dagaal dheer oo 100 sano ka badan ayaa ka dhaxeeya labada naadi marka waxay leeyihiin xidigaasi in wax walba u sameeyso Manchester United ayaan markaas u soo jeedin lahaa maadaama xidigano haddii uu ku qanci waayo Liverpool inuu markaas isaga tagana ay noqdaan clubna oo meesha ka tagay lagana yaabo in Liverpool fasaxdo in xidigaasi ay soo iibsadaan qadaraaskiisana wax 2 sano ka yar ayaa ka hartay marka lacag badan ayaa markaas ku xujeen doonaan laakiin Manchester United uma ogolaan doonaan sida u badan tahay xidigan marka wuxuu leeyahay xidig hore Manchester United wuxuu leeyahay ilaa ninkaas la soo qaada dhanka kale haddaan eegno suuqa xidiga badan ayaa laga doonayaa oo wali suuqa uu furan yahay Chelsea ciyaartooy fara badan ay doonaysaa oo markaas ay rabto inay soo iibsato dhanka kale Arsenal ayadana waxay doonaysaa xidiga fara badan oo markaas ay kamid tahay Alexander Isak Victor Osimhen oo markaas Arsenal hadda xoog saaraysaa wariyahan markaas ay soo gadato inkastoo goolhaye 17 sano jir ay soo iibsadeen xil ciyaareedkan oo wali isbuucan ay soo iibsadeen haddana waxa la leeyahay goolhaye mustaqbal laakiin mid hadda safka hore ku bilaabanaya ma aha marka suuqa si toos ugu jira Arsenal waxa ugu badan ay baadgoobeen oo wariyahan oo markaas ay ku bedelaan Jesus oo markaas dhaawac la noqday ama gool badan dhali waayay marka dhanka kale hadaa aadno naadiyada farax badan ee markaas ay kamid tahay Liverpool wali ciyaartooy ay doonaysaa suuqa ku jirta ciyaartooyda ay doonaysana waxa kamid ah ayaa leeyahay xidiga chemical la yiraahdo oo qadka dhex ka ciyaar Bayern Munich waxay sheegtay xidigaas inay iibin doonto ayna u badan tahay inuu xil ciyaareedka dambe Premier League ka ciyaari doono waxaa kaloo jirto in xidig kale waaweyn ayaduna ay doonayso walow tababaraha cusub ee Arne Slot uu ku mashquulsan yahay inuu dhanka iyo Holland ka soo kalluumaysto dadka markaas milkiilayaasha naadiga Liverpool waxay leeyihiin Holland ha ku laabanayna meelo kale aad oo ciyaartooy kale raadso sababtoo ah Manchester United ay Holland ka soo iibsatay Anthony oo ku qasaartay marka Martinez ay ka soo iibsadeen dhaawacyo ay noqdeen dhaawac ay noqdeen marka xilin meelo kale aad oo ha ku noqon dhankaasi walo arki doonaa wax ka soo kordho suuqa galibsiga ciyaartooy fara badan ay kooxaha wada doonayaan laakiin Euro-ga ayaan eegi doonaa bal qaabka loo saadaaliyay super computer ay wuxuu ku celcelinayaa saadaaleyn la yaab leh oo markaas adiga wax taa maqasho alla yaab doonto saadaaleyntaas waxay tahay in wuxuu u saadaaliyay xulka England inuu ku guuleysan doono 81.6 inuu qaadi doono Euro-ga xul ku xigana waa Spain oo asaguna u saadaaliyay in asagana 81 oo alxamdulillah 81 inuu ku guuleysan doono Euro-ga qofka saddexaadna waa Faransiiska oo asaguna 80% ku guuleysan doono markaas inuu qaado Euro-ga 2024 waxaa kaloo jirto in Spain nimanka la yiraahdo ayagana Portugal 69% oo sheegay inay ku guuleysan doonaan Italy 56% inay markaas qaadi doonaan safka hore dadkaas ayaa ku jiro marka dadku waxay isweydiinayaan Ingiriiska aan aragnay ee saaragto dhacay ee tabarta aan haynin oo baraajada ku soo baxay muu badan tahay inuu markaas Euro qaadi doono taas waa adag tahay leeyahay walow dadku ay leeyihiin leen qabo ayo maray haddana leenkaas qabo naftiisa laga yaabo inuu adeeg ku noqdo
ingiriiska had kor Iceland wadan aad u yar Iceland yar jasiirada ayaa reebay haddana waxa way marna had korna waxa ka baday Slovakia haddana Slovenia ku aadeen waxa laga yaabaa in la garaacay ingiriiska marka waan arki doonaa saadalintaas wixii kasoo kordho waa saadalin la yaab leh oo dadku inta badan isku maraacsano in ingiriiska oo euro qaadi doono ayadoo ay joogaan Germany iyo waliba maxaa la yiraahdaa iyo Spain iyo tiimam kale markaas waa cadreynay sida Faransiiska kaleeto hadda Germany iyo Spain labaad galiyay Germany saddexaad oo galiyay asiga naftiisa in boqolkiiba 79 ayuu soo qoray inuu ku guuleysan doono laakiin saadaashaas uu kala bedelay oo meeshii ingiriiska uu ka dhigay waxa leeyahay inuu German ka dhigay sababta German ka xoogan ka ciyaar wanaagsan dalkiisana jooga inuu Euro 2024 qaadana ee markaas u badan tahay sida dadka inta badan saadalinayaan oo dadka ciyaaraha indheendhe ay leeyihiin sanadkan oo sanadka Germany koobkan wadankooda lagu dhigayaa cid ka xigtana ma jirto waa arki doonaa anaga naftigeena fikirkaas waa qabnaa bahda Goal Sports ahaan waa aaminsanahay in Germany xil ciyaareedkan uu ku guuleysan doono Euro 2024 walow football ay yihiin wax walba isbedeli karaa laakiin saadaashaas waa la qabnaa dadka qabo marka waxaa kaloo jirto in Erik ten Hag uu leeyahay waxaan u baahanahay xidiga Dybala la yiraahdo oo markaas Manchester United la keeno xidigana nadiga Roma ay joogaa waana xidig hore Juventus waana nin bidixla ah intaasna marka wax badan ay markaas u soo qabtay marka xidigan waxa leeyahay ingiriiska wada fashilmi doona sida hadda Rashford ugu caadisan oo fashilmana kale oo fashilmi doona Rasmus Hojlund ayaa la keenay inkastoo mar dambe la qabsay tiimka gool badan oo dhaliyay ilaa 6 game isku xigtana 6 gool u dhaliyay xil ciyaareedkan haddana 12 gool dhaliyay asaga Bruno Fernandes ay ugu gool badnaa xil ciyaareedka soo dhaaf Manchester United marka hadii la xidigaas uu yimaado Dybala waxay leeyihiin waxa laga yaabaa inuu la qabsan waayo sababtoo Talyaaniga dadka ka muuqda oo wacdareynayo markay yimaadaan ingiriiska way fashilmaan inta badan waa arki doonaa bal hadii Manchester ku guuleysto xidigaasi waxa kale jirto in ninka leeyahay Mikel Arteta uu doonayo asagana xidiga daafaca maadaama uu leeyahay daafaciga la isku mahalayn karo daafac muhiim ah oo markaas bir ah oo laga baqay doonaya xidiga markaas la wada doonayo xidiga la wada doonayo waxay tahay Manchester United marka laga reebo kooxaha kale dhan Man City Arsenal Chelsea Liverpool waxay doonayaan Calafiori xidig la yiraahdo Talyaaniga difaac kaga ciyaaro waana ninkaasi wacdareynay hadda markaas qaranka Talyaaniga aad ugu ciyaaray in Calafiori waa xidig markaas la heli karo adiga Bologna ay difaac kaga qabtaa waxa leeyahay marka xil ciyaareedka dambe inay soo iibsadaan ay u badan tahay kooxaas oo dhan aan isku haysto waana xidig aad markaas u muuqda oo wacdareynayo difaaciisa markaas aad u adag yahay waa arki doonaa hadii ay Arsenal Liverpool iyo Chelsea midkood ay iibsadaan xidigaas ama Man City inkastoo la leeyahay xidiga naadigiisa lacag badan ay ku xirayaan marba haday arkeen inuu xidiga si fiican u ciyaaray waa arki doonaa wixii ka soo koray ciyaaraha wali waxa jirto in la leeyahay xil ciyaareedka dambe Premier League kooxuhu way adkeyn doonaan oo uu si adkaan doona Premier League maadaama sanadkan Man City ku guuleysatay kooxaha waxay leeyihiin walba sanadkan Man City 4 jeer xiriir macquul ma aha waa sumcad darro anagana ugu dhacday waa inaan ka hortagnaa xil ciyaareedka dambe Man City waa in lagu xaqabanaa marka naadiyada top 6 ka waxay leeyihiin sida Manchester United Arsenal Liverpool iyo nimanka lagu magacaabo Tottenham iyo dhamaan waxay leeyihiin waa in lagu xaqabanaa naadiga maxaa la yiraahdaa Man City si aysan xil ciyaareedka dambe ugu guuleysan ama si fudud ay isku qaadin walow Arsenal xil ciyaareedka hore ay dadaashay oo laba dhibcood kaliya ee Arsenal ay markaas looga qaaday sanka ay u saartay haddana waxa la leeyahay wali dadaalka meeshii la muusan gaarin wayna hor istaagi weysay naadigaasi inay markaas ka hor istaagto inay markaas warkooda afraad ku guuleystaan walaal arki doona ciyaar wixii ka soo kordhay Goal Sports halkan ugu soo gudbadana barnaamij share Gareemal Fogna Garcia inta barnaamijka loo kulmi doona fi amaan illah